nabadgelyada kaluu ma sugna waana lagu soo weeraray askar baa nagu soo weerartay tallaabo lagama qaadin waa markii labaad weey ciidanka annaga maalin walbana loogu hanjabayo in dalka lagu difaacabeen waarina yar meeyi wariya xishoon oo yeynaan isbagaadeen wariya xishoon haddii dalka la baabiinayo la kala kicinayana dee inoo kala kaxaya meesha marka caalamka oo dhan aan la wadaago qofkan wajigiisa runtahay wuxuu yahay anigu TV marka koowaad ka hadlo mana jeclaysan aan ka hadlo in badan baan ceebta saasturay ay sababtu tahay ubadkayga aabahood buu ahaa hadii soo garacna wuxuu ku dhahay adiga iyo midgaanka ay hadal hayaba halkaasaan xabad ka saaraya who am I hayga saar aniga xabada maxamed bal maxamed aan ku weydiinaya who am I anigu adiga saartay xabad halkaas xabad baan ka saaraya kadib uu ila hadlay markiisa soo galay waa maxay baan ku yiri xabadaas uu igu hanjabay kadib dad buu ku yiri waxaan ka usar maalin walba ku maslaxa markay kacdaba ama xakabad istiraatiga ba TV tagba $100 ma ina yar kala ganacsanayaan ama isa shaxaadayaan ama suuqa iska soo bixin baanay mise hooyadii ubadkaaga dhashay baanay horta anigu abi ubadkayga ila dhalay oo in badan taadiye kala gaargaar kala duwanay geysanayay sida runtii yar dadku ay u arkaan qof isagu maxaa la yiraahdaa cadaalada ku dheer oo waxaan ku mar walba xuquuqul insaanka u doodaya oo dadka u doodaya ayuu arkaan dawladdan xildhibaan buu ku yahay Maxamed Abiib weeyaan ninka loo yaqaan xildhibaan weeyay Maxamed Abiib kolay inta garanaysaa way garanaysaa